كل وعنا ونكسد وضيال كسر دوادا وركي قدام بيا صوماليا قدبada wararkeena ugu doorroona waxa kamid ah xiisa dagaal oo ka taagan duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo ciidamadii ugu badnaa oo gurmadka ciidamada ACC oo soo gaaray magaalada Laascaanood iyo dhaqaaq xooggan oo wali ay wadaan ciidamada maamulka Soomaaliland ee ku sugan saldhigga weyn ee Goojacade madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi oo mar labaad waji gabax kala kulmay kulan khadka fogaan aragga uu kula qaatay beesha caalamka isagoo dhanka kalena shuruud adag ku xidhay qaaditaanka ciidamadiisa laga qaadayo gobolka Sool dhanka kale guddiga 33 ayaa ka tagshiga gobolada ACC ayaa jawaab kulul ka bixiyay shuruudihii madaxweyne Muuse Biixi uu ku xidhay in ciidamadiisa laga qaado gobolka Sool iyo guud ahaanba gobolada ACC dhanka kale waxaynu eegi doonaa goobaha ciidamadu ay ku kala sugan yihiin iyo waliba diyaar garowga xoogan ee ay wadaan dhinacyada iyo cabsi xoogan oo soo wajahday dadka deegaanka taasi oo laga cabsi qabo in mar labaad dagaal xoogan uu ka dhaco duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhanka kale madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi ayaa u soo xilsaaray wajiga labaad ee dagaalka laba wiil oo uu dhalay oo markaasi kamid ah saraakiisha ciidamada maamulka Soomaaliland ee saameynta weyn ku leh gudaha maamulkaasi dhanka kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in ay howlgal ay ka sameeyeen gobolka Galguduud ay ku dileen hogaamiyaal sare oo uu kamid yahay hogaamiyaha lagu magacaabo Daahir Calasow waxaan idin soo gudbin doonaa guud ahaanba hogaamiyaashaasi magacyadooda iyo waliba shaqada ay u hayeen ururka argagixisada Al-Shabaab qodobadaasi ku kala faahfaahinaya daawadayaal warkeena kaga bogan doontaan waxaan istuuray kula sugan saaxiibka waxaan oo soo indheeyay xaaladii ugu dambeeyay Soomaaliya waxaan soo dhawow magaalada Laascaanood wali waxay martigelinaysaa xiisad xoogan oo u dhaxeeya iyo waliba dhaqaaq ciidamada maamulka Soomaaliland iyo ciidamada deegaanka labada dhinacba wali waxay ku dhagan yihiin mowqifkoodii adkaa ee midka kale uu ku doonayay in looga saaro guud ahaan gobolada ACC bal adoo noo soo koobaya xaaladii kacsanayd ee ka taagneyd magaalada Laascaanood xagay wax marayaan dhanka kale madaxweynaha maamulka Soomaaliland waxa uu kulan khadka fogaan aragga kula qaatay xubnaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho maxay ka wada hadleen aad iyo aad bad maasantahay Santiago xiisad dagaal ayaa wali ka taagan duleedka magaalada Laascaanood iyadoo waliba shacabku ay markasta ka cabsi qabaan in mar kale dagaal uu ka qarxo halkaasi ciidamadii ugu badnaa oo gurmada ayaana shacabka iyo waliba ciidamada dadka deegaanka soo gaaray kuwaas oo ka kala imaanaya beelaha ay walaalaha yihiin ee markaasi degan gobolada ACC ee dhinaca kale maamulka Soomaaliland waxay iyaguna wadaan dadaal ay markaasi dib yani ugu doonayaan in ay gacanta ugu dhigaan magaalada Laascaanood dadaaladan ay wadaan ciidamada maamulka Soomaaliland waxa qayb ka ciidamo beeleedyo markaasi la sheegay in ay maalmihii ugu dambeysayba maamulka Soomaaliland ay ka aruunayeen dhammaan deegaanada maamulka Soomaaliland ee haatan uu ka arrimiyo Muuse Biixi dagaaladan ayaana la rabaa in gabi ahaanba in yani lagu xoojiyo ciidamada maamulka Soomaaliland ee go'doonka ugu jiro saldhigga weyn ee Goojacade ciidamada dadka deegaanka ayaa maalmihii la soo dhaafay Santiago waxay wadeen markaasi inay sameystaan saldhigyo ka baxsan kuwii lagu dagaalamay oo markaasi laga sameynayo meel aad ugu durugsan saldhigga weyn ee Goojacade sifa markaasi ciidamada maamulka Soomaaliland hadii ay damcaan inay uga baxaan saldhigga weyn ee Goojacade ay halkaasi ugu sameeyaan shirqool iyo waliba sidoo kale in ay dhabar jabin halkaasi ay ciidamada uga dhigaan walow ay mar walba warbaahinta la soo taagayin haddana waxaa jirto markaasi saldhigyo waaweyn oo qorsheysan oo markaasi loogu talagalay in ciidamada maamulka Soomaaliland ee gabi ahaanba markaasi dhabar jabin loogu sameeyo dhinaca kale Santiago maamulka Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi waxaa saarnaa cadaadis xoogan oo beesha caalamka uga imaanaya kaasi oo ku aadanaa sidii gabi ahaanba ciidamada uu ogala bixlaa saldhigga weyn ee Goojacade iyo guud ahaanba deegaanada gobolka Sool ay kaga sugan sifa loo helo marxalad lagu wada hadalsiin karo garaadada ismada iyo guddiga 33 ee gobolada ACC iyo waliba sidoo kale maamulka Soomaaliland dhamaanba arintaasi madaxweynuhu wax garnaqsiga kama uunsan sameyn waxaana uu sheegay inaysan marnaba arintaasi suurtagal ahayn inta ciidamada maamulka Puntland ay ku sugan yihiin ee deegaanada gobolada ACC waa sida hadalka u dhigay Puntland ayuu ku eedeeyay in ciidamadeedu ay ku sugan yihiin saldhigyada markaasi ku hareeraysan ama furimaha dagaalka ee ciidamada maamulka Soomaaliland lagu la dagaalamay waxaanu si cad u sheegay in ciidamada PSF ta ka amal qaata Mareykanka ay qayb ka yihiin dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ayadoo waliba uu tusaale u soo qaatay dagaaladii ugu dambeeyay ee jabka xoogan lagu gaarsiiyay ciidamada maamulka Soomaaliland in markaasi ay qayb ka hayeen ciidamada commandoska ee PSF ta oo ah ciidamo markaasi aad u qalabeysan isla markaana tababarka uu siiyay wadanka Mareykanka oo markaasi ciidamo ka amar qaato Asadiyan dhinaca kale waxa uu shuruudan ku daray Muuse Biixi inta markaasi ay isimadan iyo garaadadan ay mowqifkoodu yahay inay Soomaaliya dib uga mid noqdaan gabi ahaanba ciidamadu kama baxayaan oo magaalada Laascaanood waxaanu ku qabanaynaa awood ayuu hadalkiisa markaasi ku soo gabagabay wahagaag mar hadii Muuse Biixi uu ku adkaystay mowqifkiisa adka ee ahaa in ciidamadiisu ay dagaalka sii wadaan oo gacan ku haynta magaalada Laascaanood ay la wareegaan
dadkii deegaanka iyo weliba guddigii ay ka tashiga warka ay soo saareen iyagu maxay kaga jawaabeen waxay kaga jawaabeen dhammaanba inay u diyaarsan yihiin damac kasta iyo weliba sidoo kale qorshe kasta oo Muuse Biixi uu ka damacsan yahay magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolada ACC dadkan deegaanka 2 bilood in ka badan ayay dagaal kula jiraan ciidamada militariga maamulka Somaliland kuwa maleeshiyaadka iyo weliba kuwa markaasi qaab qabiileed markaasi lagu soo galiyay saldhigyada haatan la isku horfadhiyo ee ku yaala aaga Gooja Cadi weliba Toga Maraaga si kastaba waxay isimada dhaqanku ay sheegeen in wax kasta iyo weliba nidaam kasta oo Muuse Biixi uu ka damacsan yahay halkaasi in ayaguna mid la mid ah diyaar u yihiin waxaana ay markaasi hanjabaadooda ku soo gaabiyeen in magaalada Laascaanood oo kalita lagu dagaalami doonin waxaana Santiago soo baxayso in jabhado hor leh laga abuuray deegaanada gobolka Awdal kuwaasi oo ayagana halkaasi ka wadi doono furimo dagaal oo markaasi lagu furayo ciidamada maamulka Somaliland waxaana dhinaca kale to ayadna soo baxayso in markaasi dad u dhashay beeshaysa oo ayagu gebi ahaanba aan taageersaneyn nidaamka Muuse Biixi oo ugu soo duulay gobolada ACC in ayaga laftirkooda haatan ay dagaalo iyo weliba iska hormaadyo ku dhaxmarayo ciidamada booliska maamulka Somaliland iyo weliba shacab cadhaysan magaalooyinka Burco iyo weliba sidoo kale magaalada Berbera shalayto ugu dambeysay dekada Berbera waxaa la arkayay askarta markaasi ilaalada dekada oo cayrsanaysa shacab fara badan oo ay ka gadoodsanaa dhaqaale darri iyo weliba sidoo kale to macaluul halkaasi ka dilacday kadib markii 2 bilood ee la soo dhaafayba dekadaasi shaqaalaha aysan helin wax mushaar sidoo kale tan aysan jirin wax markaasi shaqa oo halkaasi ka hayaan si kasta markaad fiiriso hanaanka maamulka Somaliland uu ku soo shaqeynayay iyo nidaamka haatan uu wax marayo gabi ahaanba waa mid markaasi aad u kala dheer maamulka Somaliland ayaa ku fashilmay siyaasadii arrimaha dibadda tii gudaha iyo weliba soo kale tii dhaqaalaha oo shacabku haatan waxaad moodaa inay gacmaha isla galeen ayagoo weliba aysan jirin wax shaqa iyo wax mushaara oo ka helayaan maamulka iyo weliba sidoo kale goobihii markaasi ganacsi ay u kala dhoofin dabcan waxaan ognahay dowladda deegaanka Soomaalida iyo weliba deegaano fara badan oo ka tirsan gobolada ACC iyo weliba dalka Soomaaliya ayaa ku xidhnaa dekadaha maamulka Somaliland oo haatan gabi ahaanba ay shaqo la'aan ay ku habsatay dhinaca kala garoomada maamulka Somaliland ayaa la iskugu soo raray la iskugu keenay magaalada Hargeysa taasina waa mid markaasi muujinaysa in maamulku gabi ahaanba dhaqaale ahaan iyo weliba system ahaanba uu u burburay oo haatan aysan jirin maamul ka taagan maamulka Somaliland ama jiraba marka laga reebo madaxweynuhu kalita oo asagu amar bixinaya isla markaana amarkiisa uu yahay in la xasuuqo oo la laayo shacabka ku dhaqan gobolada ACC wagaag dhanka kale wajiga labaad ee Somaliland ay u diyaar garoobaysa ee lagu qabanayo magaalada Laascaanood waxaa la sheegay in loo soo magacaabay ama madaxweyne Muuse Biixi uu soo magacaabay 2 wiil isagu u dhalay labada wiil oo loo kala magacaabay dhinaca howlgelinta militariga iyo weliba xog raadinta sirdoon in uu soo kala magacaabay horeyna waxaad u sheegtay in Somaliland lagu jabiyay wajigii koobaad ee dagaalkii ka socday magaalada Laascaanood saraakiisha ugu badnaan halkaasi ay kaga dhinteen labadan wiil ee yaryar ee la soo magacaabay maxay ka bedeli karaan hab socodkii dagaalka ka socday magaalada Laascaanood ciidamada maamulka Somaliland Santiago waxaa hogaaminaya saraakiishii la soo dagaalantay Maxamed Siyaad Barre iyo weliba sidoo kale jabhadihii ka dambeeyay ee qabsaday wadanka Soomaaliya dhamaanba saraakiishaasi waxay lahaayeen khibrad dagaal waxayna hore uga mid ahaayeen intooda badan ciidamada qaranka Soomaaliya sanadkii inta uusan dhicin ama markaasi xilligii dawladii Maxamed Siyaad Barre ciidamadaasi la jabiyay saraakiishaasi la jabiyay dhamaantood khibrad dagaal oo markaasi ka maqnayd ma jirin laakiin waxaad moodaa in maanta dhalinyaradan yaryar ee qaarna Muuse Biixi u dhalay qaarna adeerka uu yahay ee uu rabo inuu ku qabto magaalada Laascaanood inay tahay kuwa la marin hawaabinayo isla markaana kuwii meydkooda la soo fogeynayay ee haatan ilaa iyo xilligan meedadkan daadsan ee saldhiga weyn Gooja Cadi agaarkiisa weliba Toga Maraaga kuwa la mid ah bay noqon doonaan dabcan ma u malaynayo wax markaasi guula inay ka soo hooyaan dagaalkan oo ognahay in shacabka gobolada ACC ay u diyaar garoobeen sidii gabi ahaanba ay iskaga dhici lahaayeen cadawga baaxadda weyn ee dhowr iyo 10 sano markaasi cuburinta iyo weliba cadaadiska ku hayay shacabka gobolada ACC si kastaba ha noqotee tan iyo intii dagaalku ka bilowday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhinacyo badan oo ay ka mid tahay dawladda Itoobiya iyo weliba dawladda Djibouti dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isku dayay in xiisadani la dejiyo isla markaana lagu dhameeyo wada hadal balse dhinacyada ayaan wali ka qancin waliba waxay ka qabsoomi weeday sida la xaqiijiyay dhinaca maamulka Somaliland oo ayagu ku dhagan mowqifkooda ah in magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolada ACC ay ka tirsan yihiin Somaliland isla markaana ciidamadooda loo baahan yahay in gacan ku haynta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay marka hore gacanta ku dhigaan kadibna wada hadal la furo halka ciidamada ACC iyo waliba odayaasha iyo dhaqanka iyo waliba isimada dhaqanka ee gobolada ACC ay iyagana ku dhagan yihiin
in ciidamada maamulka Somaliland guud ahaanba ay baneeyaan gobolka Sool isla markaana ay tagaan xadka gobolada SSC iyo waliba beesha Isaaq ay leeyihiin si markaasi wada hadal hadii la furayana loo furo waana xaalad si adkeynaysa in wada hadal dhinacyadu ay ku qancaan uu ka qabsoomo gudaha deegaanada ay hadda dagaaladu ka socdaan madaxweyne Muuse Biixi ayaana marar kala duwan waxa uu soo magacaabay saraakiil kala duwan in ay wax ka bedelaan hab socodka dagaalka si gacanta loogu dhigo magaalada Laascaanood oo raantii dagaalkii ka bilowday magaalada Laascaanood gacanta ciidamada maamulka Somaliland ka baxday in ka badan 2 biloodna hadda gacanta ay ku hayaan ciidamada deegaanka ee SSC iyo dadka ka kacay in maamulka Somaliland ay ka taliyaan gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaxweyne Muuse Biixi ayaana guud ahaanba waxa ay ku guuldareysteen saraakiishii uu soo magacaabay in ay magaalada gacanta ku dhigaan ugu dambeynna xogo hoose ayaa sheegaya in 2 wiil oo isagu u dhalay in uu u soo magacaabay taliyaha howlgelinta militariga iyo waliba taliyaha xukraadinta sirdoon oo markaasi uu doonayo in lagu kala jabiyo shacabka isla markaana xogaha ciidamada SSC uu helo sargaalkaasi si markaasi ciidamadu ay howlgal iyo waliba weerar ay ugu qaadaan goobaha ciidamada SSC ay ku sugan yihiin saraakiishan uu soo magacaabay ayaana la xaqiijiyay inay yihiin niman aad u da'yar oo markaasi dhalinyaro waxaana Soomaalida iyo waliba khuburada u dhunduleesha xogaha gobolada SSC iyo waliba dagaalka ka soo duleedka magaalada Laascaanood ay isweydiinayaan dhalinyaradani aad ka u yaray madaxweyne Muuse Biixi uu soo magacaabay waxa ay ka bedeli karaan hab socodka dagaalka iyo waliba jabkii soo gaaray ciidamadiisa saraakiishii tirada badnayd ee lagu laayay iyo waliba guuldaradii ku soo hoyatay ciidamadiisa ku sugan saldhigga weyn ee Goojacde iyadoo dhanka kalena ciidamada SSC ay soo bandhigeen in guud ahaanba lagu hareereysan yahay saldhiggaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada Somaliland isla markaana aysan jirin goob ay ka bixi karaan iyagoo dhanka kalena ay soo bandhigeen in jidkii gurmadka iyo waliba dhaawacyada loogu qaadayay magaalada Hargeysa iyo waliba magaalooyinka waaweyn ee maamulka Somaliland gabi ahaanba hadda ay ku sugan yihiin ciidamada SSC xiisada ayaana sii adkaanaysa maalinba maalinta ka dambeysay iyadoo waliba maalmihii ugu dambeysay oo dagaal uu ka dhicin duleedka magaalada Laascaanood ay ciidamada SSC isku ballaariyeen guud ahaanba deegaanada ku hareeraysan saldhigga weyn ee Goojacde ay ku sugan yihiin ciidamada SSC dhanka kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in ay howlgal ka dhacay gobolka Galguduud ay ku dileen horjoogayaal sarsare oo ka mid yahay Daahir Calasow isla markaana laga yaqaan deegaanadaasi kana mid ahaa khawaarijta kooxaha ugu mas'uuliyiinta ugu sareysa waxaana ay shaaciyeen in horjoogahaasi iyo waliba horjoogayaal kaleeto ay ku dileen howlgalkaasi oo maalmihii ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadeen gobolka Galguduud inta badan deegaanadaasina laga qabsaday deegaanadii ururka Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen waxaana mar labaad su'aal ka weydiiyay saaxiibka wacane oo soo indheeyay xaaladii ugu dambeeyay ee gobolka Galguduud Santiago aad iyo aad baad mahadsan tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa wajigii labaad ee dagaalka ka curtay guud ahaanba deegaanada haatan dagaaladu ay ka socdaan sida gobolka Galguduud iyo waliba deegaano fara badan waxay maanta ciidamadu soo bandhigeen in markaasi ay gabi ahaanba khaarijiyeen horjoogayaal ka tirsan ururka argixisada Al-Shabaab oo ka mid yahay horjooga caan ka ah deegaanadaasi oo loo yaqaan Daahir Calasow isla markaana ah horjooga markaasi aad u shar badan isla markaana dhibaatooyin fara badan u geystay shacabka deegaanadaasi waxayna dhinaca kale sheegeen in saraakiil fara badan oo ka tirsan ururka argagixisada ee Al-Shabaab Santiago bulshada Soomaaliyeed daawanayso waxaad moodaa in Daahir Calasow ay ku wareersan yihiin oo isla yihiin Daahir Calasow maki YouTuber kaaba طبعا maaha Daahir Calasow waa mid markaasi ka tirsan ururka argagixisada Al-Shabaab isla markaana ah horjooga sare oo aad u dhagar badan isla markaana dhibaatooyin fara badan u geystay shacabka ku dhaqan gobolka Galguduud iyo waliba gobolada Mudug oo ayaga laftirkooda markaasi uu ka howlgali jiray maalmihii ugu dambeysay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Santiago waxay howlgallo ballaaran ay ka wadeen deegaan Galcad iyo waliba sidoo kale deegaano markaasi aad ugu dhow degmada Wabxo waxaana inta badan la soo bandhigay halkaasi meydad fara badan iyo waliba ciidamada oo markaasi sheegaya in ay furteen deegaano hor leh oo markaasi ururka Al-Shabaab ay kaga sugnaayeen deegaanada gobolka Galguduud dhinaca kale Santiago horjoogayaasha ay ciidamadu soo bandhigeen waxa kamid ah ku-xigeenkii kaba ku tukaday oo ognahay in gabi ahaanba gobolka Shabeellaha Dhexe uu iskaga soo baxsaday kadib markii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed halkaasi howlgallo ballaaran ay kaga saareen dhamaanba kooxihii khawaarijta halkaasi ku sugnaa maalmihii ugu dambeysayba tan iyo wajiga labaad ee dagaalka ee ka curtay guud ahaan ee dalka Soomaaliya ee lagu ciribtirayo ururka argagixisada Al-Shabaab waxay ciidamadu maalin walba ay soo bandhigayaan guulo markaasi la taaban karo waliba sidoo kale goobo fara badan oo ay ka qabsadeen ururka argagixisada Al-Shabaab aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu saaxiibka wacane daawadayaal idinkana waad mahadsantihiin wararkeena xigay intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tegaynaa amaan Allah